waxaan jeclahay inaanan ku dheeraanin iyadoo waqtiguna inagu kooban yahay. waxaan jeclahay dadku inay fahmaan oo ay ka tanaasulaan dhaqanka Soomaalida ee ah inay wax walba ogaadaan, inay wax walba arkaan, inay wax walba ka hadlaan, inay wax walba ka jawaabaan. waxaan ugu codsanayaa inaad ku tarbiyowdaan. maanta idinkaa jooga, innagaa joogna, laakiin beri waxaa laga yaabaa intanan oo dhan inaad weydaan oo waxa munaasabka ah meesha ku soo araayo ku noqotaan. waxaan rabnaa inaad in ururka iyo xubnihiisu ay qaataan in waxyi uu u noqdo oo ay ku dhaqmaan waxa madaxdooda ay ka maqlaan keliya, inayna qaadanin waxyaabaha fadhi-ku-dirirka ah, siyaasadaha qaldan, miidiyaha caalamka waaray, waxaasoo dhan inaysan u dhegtaagin, inay sugaan sanadna ha qaadatay waxa rasmiga ah ee ay madaxdooda keenayaan. taasaan guul ku gaarina insha allahu tacaala, kagala duwanaanaya dhaqamada yani fuleedka ah. waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo oo hadalka aan rabaa inuu inoo bilaabo ugu horeyn xogayaha golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Soomaaliya waa speakerkii ururka. yani haddaad qaarkiin hadday la yaabaan ururka xaggee waa speakerkii ama waa ra-iisul baarlamaankii ururka ONLF uu lahaa mudane maxamed cabdi yaasiin macalin diinadu ku magac dheer yahay 40 sano ilaa iyo 50 sano in ku dhow hawsha waday. falyada fadal macalin soo بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثات وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وايد السلام يا بعد السلام وحان إذا كم هالعلينية أنا أقول الله يا أفك وفتك جوحه هذا مناسبة كقيب قال كأت كسوق قيبستين كسوق قيب قشين مناسبة أجاسين كأت ساوى أجاسينتين حمنا يا شعب وينه تدك لقوميسته الصومالية ده وقاعد يكون أولياء تدك الصومالية ده شعب كامل وجوجا لما أدبان دين السلام يا وأنا دين مهد عليه سلام كبعدي وقتها يمشي أو كرول يهولها هذا الكندان إلى أن حتى إنه وحياة بدن كهذا الله وحلا جاي بين إبارتي إنه أتكاتو وانسوق الكوريا قضية ما أنت أنت كهين يهوش أنا مش أفردنا حتى وهو الصوماليات وأمة الصوماليات قضية ذي مجرو كحمل أولى أمة الصوماليات مركين لك لقيمين شركي له قيب صدي كل يسدد بقول يا سجاشة يتضردي أي أفرت عدو الشيء بعدين صدح رأي يوروبا يمد أفريقيا وحكى قيب صدي يسوي بعدين dhibaatadii ay maalinka ummadda Soomaaliyeed dhaxdhigaan ama loo dabaray ay wali ummadda Soomaaliyeed ku jirtaa. waxaana xaqiiqo ah ummadda Soomaaliyeed waxa ku mahmaadaa hal barkeed qalan yahay barkeeda kale ma fayooba. ummadda Soomaaliyeed waxaan wada xasuusanahay mar inta gumaysigu uu haysto wadanka Soomaaliyeed qayb kamida
qayb soomaaliyeed oo xoolihi ma jirto ummaddii soomaaliyeedna waxay u burburtay oo loola dagaalamay waxay ahayd qadiyada waddankaas marka inaan kulligeen horta aan wacyigaas ummadda soomaaliyeed aynu isxasuusino oo waxaa inaga maqan qof kasta oo soomaaliya inuu ka maqan yahay ama ku noolaado geeska africa meel kastaba ha kaga noolaadee qaybaha loo qaybiyey min jabuuti kasoo bilow ilaa halkaa aynu joogna ha noqotay waxaa weeye xaqiiqatan mingisti maalinka uu baxayey ee etoobiya soomaali la burburiyey etoobiyana la doonayay in burburka laga badbaadiyay yuu khudbad aqriyay khudbadaas runtii meelo badan baan anugu inaan ku celceliyo jeclahay waxaan isleeyahay ku celcelinteeda dan kale kama lihi bal inay wacyi iyo dareen u kordhiso dadka soomaaliyeed ayaan ula dan leehay mingisti baa khudbad buu aqriyey maalintii markii waddanka ka baxa la yidhi adigu sahay qaado ee uu doortay inuu zimbabwe tago khudbaduu aqriyey wuxuu yihi dadku maalinta ha fadhiyeen hana lay dhegaysto eraya wax aada fara badan buu ka hadlay kuma wada celinayo waxaase muhiim ahayd inuu yidhi etoobiya waddanka la yidhaah waxaa soo xukuntay 2 nin oo iga horreysay buuri isagu nin islaam ahay oo lijiliyaasu la odhan jiray oo ay dileen buu dhexda ka saaray magaca etoobiya khariidada inta la sameeyey mid walba 2 nin hore waxbaa lagu xasuustaa buuri mililk waxaa lagu xasuustaa buuri inuu sameeyey khariidada weyn ee etoobiya ee aada aragteen mililk baa lagu xasuustaa uu sameeyey in yar oo abasinia ah oo buuraleyda ku oodan ayay ahayd ninkaas waxaa lagu xasuustaa buuri etoobiya arrintaas u qabtay xayla salaasana waxaa lagu xasuustaa buuri waxaa lagu xasuusaa etoobiya oo aan bad lahayn oo laal lokida inuu badda cas uga sameeyey xidhiidh oo eritrea uu kusoo daray mingiste haddaan ahay ani maxaa laygu xasuusan doonaa buuri waxaa laygu xasuusan doonaa buuri inaan ahay ninkii cadowgii etoobiya ee soo jireenka ahaa 50 sano goduusa kasoo baxayna salka u dhigay hadda cadowgaa soo jireenka ee 50 sane uu isaga ku qiyaasay inuu horta godkaa ku jirayo waa soomaali cadowgii soomaali ahaa ee etoobiya ay lahayd ayaa 50 sano goduusa kasoo baxayn salka u dhigay buuri wuu sii faallooday wuxuu ihi maxaan ku gaadhay arrintaa wax kale maaha kumaana gaadhin soomaali baan kala qaybiyey buuri qabiil baan helay waxaan helay furihii soomaali lagu kala qaybin lahaa ee laga fushan lahaa waxaan doono cadowgaagana lagu burburin lahaa heerkaana lagu gaadhsiin lahaa horta ummadda soomaaliya haddaynu nahay ilaahay haynaga koriya arrintaa aynu ogaano marka hadalkan waxaan ula jeedaa maanta waxa ka socda maanta etoobiya waad ogtihin marka maxay nala gudbaan innaga dee midayna weligeedba ka soo kiciso inaan ku ridno maaha midayna weligeedba ka soo kicin inaan ku ridno ya waa lagu digtaa ruux hadduu ku daraan jiray buuri macnihii soomaali waa inaan maanta waxaan arkay oo aada iyo aada uga xanuunsaday nin soomaali ah yaa wuxuu leeyahay meel ku qoray etoobiya dhib baa haysto way burburaysa yaa loo soo duceeyo iyadoo qoran maan arkay anugu waa ereyada yani yaab kale ha marka waxaa weye hadde miyaan u ducaynaa mise meesha ina dhigeen meel kasii daran baan ku riixinaa u diyaar garooba waxaadna ogaataan ummad walba waxaa laga adkaadaa markii la qaybiyo markay muwaafaqo weydo markay wax wada qabsan weydo markii iyadu ay iska hor timaado mahmaha soomaaliya waxay tidhahdaa rag isku qaybay rag kuma qaybo waana xaqiiqa waa waxa soomaali maanta haysta qof kasta soomaaliga qofka soomaaliga markaad aragto qof ahaan kulli waa wada successful waa wada caqliyahan waa doodyahan adduunka iyo caalamka o dhan buu ka warqabaa waxaa weeye intaasoo balaan buu dhisayaa laakiin markay noqoto inay ka soomaaliga wax la qabsado wuxuu noqonayaa buu noqonayaa marka ummadda soomaaliyeed horta sidaas waa inaynu ogaano haddaan kusoo noqdo ONLF iyo dagaalka ay wado dagaalka maanta ONLF ay wado dagaal soo jireen ah oo ka soo dhaxayn jiray cadowgii soo jireenka ahaa ee soomaaliyeed ayuu ahaa cadowgii soo jireenka ahaa ee soomaaliyeed ee caanka ahaa dagaal ka soo dhaxayn jiray ONLF dhaxashay heerarkii uu soo maray oo kale u noqon maayo
waxaan ka xusayaa dagaalkan hadda oo weerar wato xabadani maalinka ay bilaabatay waxay ahayd 1994 isagoo siyaalo badan usoo socday bishii abril 20 bisha abril 20 aad taariikhda hadda wax badan aan ku noqon lahayn waqtigaan inagu simeynay laakiin muddada dagaalkaasi wixii abuuray wuxuu ahaa Ethiopia oo markii la badbaadiyay 91kii Mengistu laga saaray oo wanaalif iyo ururadii dagaalamayay Soomaali iyo halgankeedu u dagaalamayay charter wax la yiraahdo Ethiopia wada galeen charterkaas wuxuu dhigayay in 2 sano ama ugu badnaan 2 sano iyo badh ay jabhadii qabatay caasimada ay wadanka sii xukunto inta gudaheedana deegaanada iyo qowmiyaduhu ay qolo waliba maamulkeeda iyo deegaankeeda baarlamaankeeda waxay ay dhisato iyo hogaaminteeda qoladii ku qanci weyda xilliga inta muddadaasana 2 sano gudaheeda baarlamaankeedu intuu fadhiisto hadduu fadhiisto oo 3 meelood oo laba isku raaco in afti laga qaado charterka Eritrea wax ka saxeeday ficlan iyada kaliya ayaa markaa loola jeeday arrintu ah innagu marka ummadii Soomaaliyeed halka joogtay aad bay khilaaf loo abuuray 16 urur baa laga sameeyay urur waxa ku jira xataa hal nin qura ah oo soo lagu diiwaan galiyay si dhexdooda khilaafka looga sameeyo hase ahaatee waxa soo dhintaan dhinac isaga dhinay yaanu waxaan dabaanay oo anaraf ahaan aftida inaan xaqiijino maxaa yeelay waxay ahayd xaq u soo baxay ummadda Soomaaliyeed وأتي بشي فبراير 94 شريعة طبعا كذي يعني برلمان كيف يسني لما برلمان حمله ورهدي الصومالية ده اسكو كان كها وان كوهشيني دمانتي برلمان كبر كفرستي برلمان كحيل جاسوحها بقولي طبعا هل نبى معنا بقولي سيال كي كلا اسكو راعي هل نبى جري وقعت هوس يعني ونبى انتو قاضي والوري قعدت ابو كرتك ابو قباتو عش ما لكو هذا مسنين arrintaas markay dhacday waa dagaalkii la soo qaaday marka dagaalka maalinka aan galay haddaan yar u noqdo magaalada Garigoan isagoo hogaaminta ONLF ay joogtay yaa la soo weeraray markii horena weerar kale ka horeeyo qolyo kale lagu sii qaaday oo marka ay waxoogaa islahaayeen muddo joogaysan laakiin ay durba ma artay inay xaliyeen oo qaateen marka ala kulli xaal maalinka waxba yar ku sii noqonine ONLF laba u istaagtay waxa uu istaagtay inay qadiyadan saxiixdo Ethiopia inay tahay ummadda Soomaaliyeed ay gubaysato iyo inay ku adkaysato ummadaasi inay aayada ka tashato maalinkaas waxa intanada meesha fadhida maalinka inaan ku baxno ayaa waxaan ugu diyaar garoonay ummadda Soomaaliyeed inay aayada ka tashato ka joogtaan go'aankaas qaadanay mid ka khadhaadhay oo maleynaya kadib in la qaadan doonana u maleyn maayo maxaa yeelay xilliga markii aan fadhiisanay waxaan niri ummadda Soomaaliyeed civil war baa ka socda meel walba dagaal baa ka socda qabiil bay isu dilaysaa meesha looga yeedhiyo kabcada ay hadda aadaan ay soo siyaartaan u noqotay ma taqaana sidii beedkii Ilaahay oo kaleena adisabay noqotay wayna dili doonaan wayna dhiibi doonaan wayna la dagaalami doonaan Ethiopia u haynin doonaan maxaan ka yeelinaa maalinkaas waa 1994 go'aan bay ONLF gaadhay go'aankaas wuxuu ahaa in qof Soomaali ah dhibka nagaga yimaada ilaa Ethiopia inta la dagaalamayno aan dhinac isaga dhigno sababtoo ah haddii ay dhacdo inaan maalinka qofka Soomaaliga u jawaabno waxaan fulinaynaa istaraatiijiyadii Ethiopia ahayd ee wax isku qaybeen Soomaali marka waad ogtiin halganka dhibkay u geysatay waxaan idin sheegayaa halganka wadanka ka socday wadankaasi Ethiopia mar hore kala food qaadi lahayn waxa labada luqad kaga maray waa qof Soomaali ah ama xuduudda Soomaaliya ha jooga labadii gobol ee xorta ah ha joogo iyo meel kale ama ka gudaha jooga ha ahaatee haddaan la adeegsanaynin waxaan idinku dhaaranayaa inaan Ethiopia maanta isla soo gaadhin oo xaqiiqa marka ummadda Soomaaliyeed maanta kuwa u adeegayeen halkaas ay sii marayaan war maanta way sahlan tahay nin walba diyaar garow oo hawsha meesha kaaga haboon qabo waxa u dhaxeeya qofka Soomaaliga ana iska ilaawo idinku aad u mahadsan hadalka inaan sii dheereeyo ma rabo annaga waftiga iyaga waxaan u nimid wada socotiin
hawlihii aanu nimid waxaan leenahay annagu qaybaanu kalena qayb waliba shaqadeeda ayaa iyada loo daayaa wixii ku saabsan wadahadalkii iyo hawlihiisii wadahadalka hogaanka arrimaha dibadda ayaa mas-uulka ah isagaan u daynaya iyo wixii hawlihiisa isagaa idin sharxi doona laakiin waxaan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed ee halka fadhida ama ha ka soo jeedo kuwa la gumaysto ama kuwa hadda gumaysi u yaalka ee caqliga laga gumaysto ha ahaadeen kuwa physically baa loo gumaystaa iyo caqliba kuwana hadda caqligaa laga gumaystaa inkastoo dhulkooda meelo badan laga haysto nin tigrey ah ayaa mataqaanaa aan wada hadalnay marka runtii wuxuu ku faanay muddo yar kabacdi geeska africa inay qabsan doonaan cidda la qabsana geeska africa loo socda kenya ma aha sudanna ma aha cid kale uganda looma socdo tanzania looma socdo cidda la qabsanaya waxaa weeye waa soomaaliya nin siyaasi ah ayaa wuxuu qoray waana arrin go-an soomaali waxa yeeligeeda ay u taallaa waxa uu qoray in 30 milyan dadaan ka badnayn ay xeebta adduunka u dheer lahaadaan 100 milyan oo agtoodayna ayna hal dekada lahayn laa yucqal bul wax la qaadan karo maaha wax la fahmi karo waa in meel loo sameeya horta markii meel loo sameeyo xaggeed u kacaysaan idinku qof walba u diyaar garow waxaa weeye ummadda soomaaliyeed waxaan ku baraarujinhaynaa annagu waxaanu ahayn teedkii u yiilay ummadda soomaaliyeed inteeda kale cadowgana ka hortaagna waana xaqiiqa sahan iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha idin soo gaadhay waxaa weeye haddayna ONLF jirin soomaali maanta heerkaa ma ayna joogteen ama ha rumeeyeen ama ha yarumayna laakiin waxaa xaqiiqa ah haddaan ONLF iyo halgankeedu jirin ummadda soomaaliyeed iyo geeska africa inay maanta siha ka bedelaan lahayd etoobiyana gacanteeda in badan inay kaga midaysnaan lahayd marka idinku aada u mahadsan waxaan aada iyo aada idinku mahad celinayaa hala toos ummadda soomaaliya toos oo waxa kuu dhexeeya banaanka iska dhigo horta bal adigu isu sug jiritaankaaga sug jiritaankaagiiba khatar ku jire wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu